akhyaarta waa idin salaamaya salaan kadib horta annaga islaam hadaan nahay sanadka aan leenahay waa sanadkii hijriyada laakiin maadaama dadka ay isaga barteen sanadkan oo maaragta miilaadiyada sanadkan waxa lagu xasuusan doono waxa kamid ah abaarihii hadda Soomaaliya ku dhacay oo kale iyo coronavirus ko markasta la sanadkan 2021 waxa lagu xasuusan doonaa COVID-19 in waxa weeye bulshada meel kasta ay joogto caalamku ay saameyn ku yeesheen maxaa la yiraahdaa cuduradan sidoo kale ay saameyn ku yeesheen maxaa la yiraahdaa abaaraha ka jira colaado soo ragaadiyay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soomaali weyn meel kasta oo joogtaan waan salaamaya. maanta waxaan rabnaa inaan soo duubno barnaamij ku saabsan su'aal oo ah sanadkan hadda si dhamaadka ee 2021ka muxuu saameeyo u lahaa iyo maxaa lagu xasuusan doonaa marka taasan maanta bulshada islii soo weydiinayna Soomaali weyn maxay idinka codsanaynaa inaad channelka Somali Voice TV subscribe ka noo saartaan share noo dhahdaan like-ta iyo comment-da aad nagu dhiirigelisaan isla socod wanaagsan walaal soo dhaw magaca aniga Abdullahi Iman baa Abdullahi Iman oo ku soo dhaw channelka Somali Voice TV su'aasha aan dadweynaha maanta weydiinayna ayaa ah sanadkan 2021ka maalmaha yar ay ka dhiman tahay maxaa saameyn u lahaa ama maxaa lagu xasuusan doonaa sanadkan aniga hadda hadii aan isdhaho wuu ila fiicnaa sanadkan wuu fiicnaa generally aniga hadda Gaarisa ka imaaday marka wuu ii fiicnaa sanadkan meesha inta waqti baa joogay marka sanad fiican buu wixii akeen COVID-19 arrimihi saameynta iyo moogiye sanadkan anigu waa ila fiicnaa maxaa lagu xasuusan doonaa hadii uu naga tago sanadkan waxaa lagu xasuusan doonaa COVID-19 iyo waxa kale lagu xasuusan doonaa هذه سند ونكسر نبوه سند ونكسر نبوه يا بارها الريموت ها أيوة يلا وحصنا وما حسنت هذه يد وما حسنت نولا السودو معاه بشير سيال عبد بشير سيال كسودو channelك Somali Voice TV سؤال عن تدوينها والدين النمانة أياه سنة كان معلومة هي كده منتها 2021 كا محو سامينا أولها أما محلو حسن دونا سنة كان أنا هدي اللي ودي فكرنا وحلو حسن دونا عواره داعي صح عبارة عن هرلو عرق بدع أو علص صح عبارة هذا سامين تسوي حكمنا هاي محاك له وسامين أولها وحكلو سامين ولا هذا ما قرأ لكن نبضي برواقم أنت كله بتشوي لكن عبارة هو حكمنا عبارة ساقو بدنا محلو حسن دونا عبارة هذا لو حسن دونا عبارة عن ولي ولا ما قالوا عمر رضا دتك كوين عمر دتك كوين يا داعي أو دتي الدنيا بسمي وكعبارة حسوسي سوارات كجبتها عبارة لو حسن دونا عبارة لو حسن سنة عبارات كاللي دونا دولايرة صح أوكي وما حسنت بشرو أيه مقعة أنا عبد السلام عبد الله أحمد باليرة عبد السلام وكسودو channelك Somali Voice TV سؤال عن تدوينها ما أنتوا يدين إنه يا سنة كان معلومة هي كده منتها 2021 كا محو سامين وأولها محاسة أتكو حسوسن دونتا هرت سنة كان سنة عرير يا حق ماركتي وحق قالها مع العقدة هرت العقدة عريري بين نقطة العقدة عريري بين نقطتي حتى سنة كي كورونا أوها أو لباتن إلى لباتن كها كان كدري صح لباتن حقا دقائق بالها لكن سنة كان هرت العقدة معي نقطة عريري ومضى هذا ورته وحوا ولا وريرسي جايبك كل جوده الدولة شيلين الآن بعد على هرت السنة كان وحنكو حسوسته وأنا هالمامين العقل الآن تتالى العقل الآن بواد العقل الآن باجرتها مركز دقال بربر بعد عيب الله دقال بربر بعد عيب صح لعق ماله مركز لعق الآن محل وصعن محل واحد يبسن كبار ربطة محل يبسن ولعقتي ويدونتي هرت السنة كان واحد كي هراء أمرتها ولا ده وكورونا 2020 قدنت العقبة لهلا وحباك للسعود لكن كان وحالة جه المامين وولي جه هذا عن مسكحة عن كقري العقل الآن العقل الآن ها هذه هذا ما سنتاي العقل الآن كان صوت صعود
بوي كامبيني واحد باجراه لعيه لعلونه ميل لو قرسنه كان محمد مليني كان soo socdo lacag aan heli doona insha Allah lacag ma warabnaa adduunka waxa lagu kala socdo waa lacag sanadkan waxaan ku hilmaamayn lacag lacag ma leh marka waxa way Allah un baa wax bixiyay lacagta noo soo daho ma sha Allah ma sadaq walaal magaca Nafiso maanta waxaan wareysanaynaa oo wareysi ka qaadaynaa Dr. Nafiso oo ah gabadh Soomaaliyeed oo u taagan MCA-ga California xaafadda California marka ayadana hadda maxay heeday way noo barnaamijka way nagala qayb qaadanaysaa marka sidaa ula socda marka Dr. Nafiso waxaan weydiinaynaa su'aal aan dadweynaha weydiinaynaa oo ah sanadkan maalmaha ay ka dhiman tahay 2021ka muxuu saameynoo lahaa maxaase lagu xasuusan doonaa sanadkan horta waa garanaysiin maxay ahayd waa sanad corona beecshir xumaa dhacday shaqal ayaa dhacday corona meel walba qarribay noloshana expensive ay noqotay waad arkaysiin tabanla saliid waxa lagu gadan jiray 900 haddana waxaad marahayaa 2000 something caani Kenya ay sameynayso Brookside 2000 something aad marahayaa والله زائد سند أو حاسة هاي سند أو نبكي زائد وتا إلهي هذا نحن كرجينا 2022 إنه سند غير قبل نقطة أنا جانا كرسي صاغر رجينا إن شاء الله ما شاء الله سياسة كرجينا ولا نفيسه أيوة ما صنته ولا سودو مقعد عثمان إبراهيم يرو عثمان كسودو channel ka Somali Voice TV سؤال عن تدوينه ويديننا أياه sanadkan maalmaha ay ka harsan tahay 2021ka maxaa saameyn oo u lahaa maxaase lagu xasuusan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa ma santa walaalow sanadkan 2021 waxa lagu xasuusan doonaa COVID-19 in waxa weeye bulshada meel kasta ay joogto caalamku ay saameyn ku yeesheen maxaa la yiraahdaa cuduradan sidoo kale ay saameyn ku yeesheen maxaa la yiraahdaa abaaraha ka jira colaado soo ragaadiyay oo maxaa la yiraahdaa caalamka meelo fara badan ka dhacay marka waxaan dhihi karnaa sanadkan 2021 waa sanad laga sheekayn doono lana dhihi doono bulshada Soomaaliyeed ama maxaa la yiraahdaa caalamku meel kasta ay joogtaan waa sanad nooga tilmaaman oo na dhihi doono question mark ayaa noo saaran insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkan 2022 inuusan kiyo kale to ka dhigin amiin maxaa lagu xasuusan doonaa waxa lagu xasuusan doonaa hore baan kuugu sheegay waxa lagu xasuusan doonaa maxaa la yiraahdaa COVID-19 waxa lagu xasuusan doonaa abaaraha waxa saameynta uu ku yeeshay waxa kamid ah COVID-19 ko waxbarashadii dhaqaalihii ganacsigii maxaa la yiraahdaa isu socodkii bulshada intaas baa lagu xasuusan doonaa waxa lagu xasuusan doonaa 2021 maskana lagu xasuusan doonaa in qof walba la yiraahdo maaskiga xiro waxa weey in la yiraahdo waliba waxa u sii dheerad in la yiraahdo haddana oo nugu haraatida ugu dambeeyo nugu reebayo in la yiraahdo eraboorada caalamka kama dhoofi doontaan haddii aadnaan wadan sindaano ama cirbada talaalka aadnaan wadan taasuna waa mid nugu soo siyaaday aakhiru shahr bishii ugu dambeeyay mahadsantaa soo dhow walaal magaca magacaygu waa Sheekh Dahabi Sheekh Sayid Sayid ku soo dhawow channel-ka Somali Voice TV su'aasha aan dadweynaha maanta weydiinayna ayaa ah sanadkan dhamaadka maalmaha yar ay ka dhiman yihiin muxuu saameyn oo u lahaa maxaase lagu xasuusan doonaa bismillaah alxamdulillaah summa salaatu wassalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam awalan TV-ga iyo akhyaarta waa idin salaamaya salaan kadib horta annaga islaam haddaan nahay sanadka aan leenahay waa sanadkii hijriyada laakiin maadaama dadka ay isaga bateen sanadkan oo maaragtaa miilaadiyada sanadkan wax lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah abaarihii hadda Soomaaliya ku dhacay oo kale iyo coronavirus oo markasta la leeyahay waa soo laba kacleeyay waxyaabahaas lagu xasuusan doonaa marka waxaan is leeyahay marka abaarihii ugu darnaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda nasri ilaahay baa u keeni kare ilaahay nasri ha u keeno insha Allah waa mahadsantahay haye adan walaal soo dhow magaca aadan salaad ku soo dhow channel-ka Somali Voice TV su'aasha aan dadweynaha weydiinay maanta ayaa ah sanadkan maalmaha ay ka harsan tahay 2021ka maxaa lagu xasuusan doonaa maxaase saameyn oo u lahaa
saamaynta assalaamu calaykum waan salaanta islaamka aan ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi saamaynta sanadkan u lahay haddii aan hal iyo laba ka taabto aad iyo aad ay u badan yihiin maxaa ka mid corona wax weligeena aan maqalnay ma guryaha in la isku xareeyo xoolaha la soo xareeyo maqli jiro dad la xareynayo oo la yiraahdo kaafiyo wax la maqribkiiba guriga lagu xaro kidibna haddana la yiraahdo safar wax gali kara malaha taas ka soo gudub micishadina aad ay u adkaatay dawladda nafteeda sanadkan waa sanadka ugu yaraan 3 jeer 4 jeer cashuurta marka hore fastor waan soo dhaweysay cashuurta 40% dhimisay sameysay hadda waa ku dareeno 60% 70% la sii qaraacay dadkii maxaa waa micishada aad ay u adkaatay marka xasuusta sanadkan aan aniga naftayda oo ugu reebtay maxaa waa shaqalaan oo dadkii ku dhacday kirada guryaha la iska bixin waay maarta adi dhibaatooyinkaas ayaa maarta xasuus noqon doonaysa marka kulley ma aqaanay sanad ka dambeeyay dib u sii dhacaya sii xumaana ilaahay maxaan ka baryaynaa in uu noo wanaajiyo aad waa maasanta walaal soo dhaw magaca walaal Cabdirashiid Balida Cabdirashiid oo ku soo dhaw channelka Somali Voice TV su'aasha aan dadweynaha isli ku nool weydiinayno ayaa ah sanadkan maalmaha ay ka dhiman yihiin 2021ka maxaa saameyn uu lahaa maxaase lagu xasuusan doonaa wallaahi horta sanadkan marka saameeyo waa lahay oo ka mid tahay dad oo ku nool baadiyo ayaa jiro oo abaaro fara badan soo wajaheen dad oo qaarkood oo colaado fara badan soo wajahan ayaa jiro hadda sida ahaan hadda maanta lagu dhex jiro oo boosaaso ka taagan colaad aad u weyn baa ka taagan marka waxyaabo fara badan lagu xasuusto waa jiraan muxuu saameyn uu lahaa macnaha sanadkan يا سامينتي أولها أدو أدو حكى حسوستا سامينتي أولها والله هذا سامين وين وهذا وحوين كحسوستا هذا أنا ما جرت كل شيء كرون لازم إن شاء الله ما سنت سوكت